kulankan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal iyo wasiirada ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa ujeedkiisu ahaa taageerada wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh ee dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. xildhibaanada kulanka ka hadlay ayaa waxa kamid ahaa senator Cabdikaafi Macalin Xasan iyo sidoo kale xildhibaanad Raabico Sheekh Nuur waxayna hambalyo dabadeed xuseen in ay ku garab taagan yihiin wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya shaqada uu qaban doono qaranka Soomaaliyeed. waxaan ugu hambalyeynaa xilkan cusub ee loo dhiibay in Ilaahay garabkiisa la galo. xilku waa wareegto waa wax wareegta ah Ilaah baa bixiya midkeena ilaa xilka loo dhiibana inaan ugu tahniyeyno ku garab istaagno. salaan kadib wali geeka inta isku kooynay hambalyo iyo soo dhaweyn wasiirka cusub ee gaashaandhigga ee Maxamed Mursal Cabdiraxmaan wasiir hadhow kiin hambalyeeyana xilku cusub lakiin dhiibo Ilaahay kiin ku toogane in Ilaahay kii la garabka waa xilka ka dhib badan oo Soomaaliga ka meelu ku toosiye la fadaw eta dhibaatadan ka badan ka jarta waa wasaaradda teeta meelo la fadaw Soomaaliya in iska bedel ka degta. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu mahad celiyay xildhibaanada soo dhaweynta u sameeyay sidoo kale wasiirada kulanka goobjooga ka ahaa isagoona ballan qaaday in kaalin muuqata uu ka qaadan doono xoreynta deegaanada ay maleeshiyaadka al-shabaab ka joogaan Soomaaliya. waliisi kuma hadnagay ha ku qayb galo ku xafladda tan ha ku qayb galeen wali dhiirigeliyaase shaqadii aan qobadan lahaay in aan la mijibaar sidii jibaar jididkaas may furo koro xildhibaanada oo lamada golo ka jar hadii garab loon ku helna oo yo aan surugna jididkaasi may furo koro wali aaminsana unoo iskaalmaysani macnaheedu wali waxa dhibkanahay oo una ku bani yalla macnaata. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa 27 bishii hore wasiirka difaaca u magacaabay Maxamed Mursal Sheekh xilkaas oo horay u baneeyay wasiirka hore ee gaashaandhigga mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed. Beesha Cali Xaashi warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.